maxadka caalamiga ee lagu magacaabo Gallup Institute ee baarida fikradaha ayaa baaritaan ay ku ogaanayeen dadka adduunka ugu qanacsan nolosha ay ku nool yihiin iyo kuwa ugu niyadda xun waxay sheegeen in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in shacabka dalka Somaliland ay yihiin dadka adduunka ugu qanacsan nolosha ay ku nool yihiin iyagoo kaalinta koobaad ka galay baaritaankan caalamiga ah. maxadkan oo baaritaan ku sameeyay isla markaana su'aalo weydiiyay dadka ku nool 148 dal oo adduunka kamid ah ayaa sheegay in dadka ugu warwarka yara dhinaca nolosha ay yihiin dadka reer Somaliland isla markaana ay yihiin kuwa ugu qanacsan noloshooda adduunka oo dhan. maxadka Gallup Institute ayaa sheegay in dadka ay kula kulmeen 148 dal ee ay tageen ay weydiinayeen su'aalo ku saabsan warwarka iyo fikirka iyo dareenka ku wajahan noloshooda maalinlaha ah. maxadkan ayaa xusay in natiijada baaritaanka uga soo baxday ay noqotay in shacabka dalka Somaliland ay noqdeen kuwa ugu faraxsan noloshooda caalamka oo dhan isla markaana ay yihiin kuwa ugu warwarka iyo fikirka yar oo aad ugu qanacsan noloshooda. dadka reer Somaliland ayaa markii la weydiinayay su'aalaha ku saabsan warwarka iyo fikirka iyo inay ku qanacsan yihiin noloshooda ayaa waxay noqdeen dadkii ugu badnaa ee wadan qura ka socday ee ku jawaabay inay ku qanacsan yihiin noloshooda ama ay ku faraxsan yihiin. taasoo keentay in loo aqoonsado in shacabka reer Somaliland ay yihiin dadka ugu faraxsan ama ugu qanacsan noloshooda adduunka oo dhan. maxadka Gallup Institute oo xaruntiisu tahay dalka Mareykanka ayaa sanad walba sameeya baaritaankan caalamiga ah iyadoo arinta xusida mudan ay tahay in wadanka Sweden uu galay kaalinta 22aad baaritaankan halka dalka Ingiriisku uu ka galay kaalinta 19aad. dalka Greega oo ahaa ka ugu hooseeya wadamada reer Yurubna uu galay kaalinta 38aad. baaritaankan ayaa waxa lagu sheegay dadka adduunka ugu niyadda xun marka la eego nolosha ay ku nool yihiin inay yihiin dalka Ciraaq oo ay dagaal aafeeyeen muddooyinkii ugu dambeeyay kaasoo galay kaalinta 59aad. arinta kale xusida mudan ayaa in iskuulada dalkan Sweden qaar kamid ay macallimiintu u dhigayeen ardayda natiijada ka soo baxday baaritaankan caalamiga ah iyo in shacabka reer Somaliland ay noqdeen kuwa ugu niyadda wanaagsan marka la eego dhinaca nolosha. baaritaanada uu sameeyo maxadka Gallup Institute ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa kaalmaha ugu horeeya ku guuleysan jiray wadamada Scandinavian-ka oo ay kamid yihiin Norway iyo Denmark iyo dalka Sweden. Barkhad Abdullahi Maxamed, telefishinka caalamiga Home Cable TV dalka Sweden.